تكون وانا توقيت كبح يا وعسى مرتقى cajiib daawadayaal ninkii dhifiq ahaa dhibaatada ugu weyn ee social media ka gadal kadib haysata waxaa weeye inuu ku faanayo balwadihii cajiibka ah ee laga mudnaa in haddii aad macla dhuuman karsid in la dhuumatid. Tani waa mid ku tusinaysa in qofka haddii media uu galo kale xishoodkii xayadu ay ka lumayso dadka qaar, balse dhifiq waxaa ugu darsantay xoogay waxba inay ka yarasi noqdeen. muuqaalkan waxaanu kaga hadli doonaa ninka dhifiq oo markaasi ku baxaysiinaya aalada social media bahalkeeda oo cagaar ah oo markaasi lagu marqaamo dalkaasi Itoobiya ka baxa oo hawaada ay leeyahay. dhifiq waa nin cajiib ah. muuqaalkan iyo sidoo kale muuqaalo kale oo soo dhigay aalada TikTok taaya waxa uu kaga hadlayay inuu qaadkan aad iyo aad u jecel yahay, sidaas daraadeedna uu waayadan soo bandhigay. hadda markasta uu live ka soo galay sidoo kale markasta uu hadlayaba bahalkaasi ayuu cunaya. qaadkan malaha 250 wax bay ku sheegeen, balse waa arin la yaab leh. bal muuqaalka marka hore aan wada daawano iyo sida loo casuumay uu sheegay casuumada uu ku sheegay. marka horese fadlan subscribe noo sar YouTube-kana Hogl News. waa imsikeedkani waa 10,000 waa shay waa 15,000 oo شنو لا تكون وانا توقيت كبح وعسى يا وعسى مرتقى وحي مرتقى ما لهرضي انكم الاحتياط هيستا يستراكيشي ان دورة تشجع وما سنت ادم نكون علنيه ذيك شكرا ادم نكون علنيه ونكون فحصه عندي على سو وصلنا معكم مقالك وصلنا معكم مقالك daawadayaal anigu waan yaabay idinkuna ma yaabteen. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. waxaan arki jiray rag lagu macsuuma ama lagu martiqaado hilib iyo sidoo kale qudaar iyo wax kasta, balse adduunkan maanta wuxuu marayaa in ninkii dhifiq ahaa oo social media dhexdiisa ku dawaqay in maanta uu qaad lagu macsuumay, qaadna markaasi ciida ka badan la siinayo. waa mahadsantiin saaxiibayaal.